السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام دمان أصحابتك وحرن جنال كان وهليها أمدا هدي أدنا وعصب تأسودو سبسكرايب كتاوة جنباليل كان الرقمو سي يكوسو غاران وحول بين صورك ندر بديبا هدي أتورين للجوكتين لايك سار ولو ذاك أصحاب تادا كونو سو قر فكر كافي عن قيب توس كومنتيادا سيان سي وزيرا السوق ويلسانو إذن كالله إمين كان كوسودو تحنهيني لواتنات يكون هبين كي حي شارزات وحي هذا الكوب اللوضي بقرو markii barsaabkii dadkii weydiiyay muxuu sameeyay sayidkiina ayaan ku dilay timajarahan muxuu idinka dhax qabanaya waxa hadla timajarihi wuxuuna yiri adiga ayaa garaacay wax yar ka hor oo aniga ayaa maqlayay qaylidiisa markaas barsaabkii wuxuu yiri oo muxuu sameeyay oo aniga aan ku dilayay yaana soo gili guriyayga xaguuna ka yimid muxuuna halkan ka soo doonay timajarihi ayaa hadlay wuxuuna yiri barsaabo isyeelka iska daa aniga wax walba waan ogahay sababta oo guriga u soo galay iyo xaqiiqda dhan taasoo ah inantaadi ayaa isaga jecel asigan ayada ayuu jecel yahay waan ogahay inuu isaga guriga soo galay oo aad adoomahaaga amar ku siisay inay garaacaan kuna bishaarayso wallahi inaanan ka haraynin ilaa aan arinkan khaliifka u gudbino ama asiidkeena noo soo saarto hana igu dhihin adiga soo gal oo la soo bax waxaan rabaa inaad adiga soo saarto kolkaas ayuu barsaabkii yaabay hadalkii timajaraha ayuu la tacajubay wuxuuna timajarihi ku yiri hadaad run sheegayso oo aad waxa ay sheegayso run yihiin kaale adiga soo gal oo ka soo saar timajarihi guri ayuu soo galay markaan arkay inuu soo socdo ayaa waxaan is iri baxso oo ka meesha laakiin meel aan u carrawaan waayay waqtiga wuu ugu yaraa laakiin waxaan galay sanduuq meesha yaalay kadib timajarihi ayaa soo baxay oo meeshii aan aniga joogay yimid markaasoo aagii barbaaray markuu wax ka waayeen wuu iska naqday anigoo aad u naxsan ayaan sanduuqii ka soo baxay derbi dheer oo meesha yaalay ayaan fuulay oo ka soo booday kaasoo sababay inaan lugtaan ka jabo markaan dhulkii ku soo dhacay ayaan waxaan arkay dad badan oo meesha taagan hal mar ayay isoo wada eegeen aniguna intaan isku naxay ayaan jaabka gacanta geliyay xoogaa dahab igu jira ayaan soo saaray kor ayaan u fardhiyay saan iskaga mashquuliyo markii dadkii ay daabkii ku mashquuleen ayaa aniga soo cararay si aan nafteeda u badbaadiyo mise waaba timajarihi oo igu raad jooga meel kasta aan ku dhunto waa iga soo dawgalayay ilaa markii dambe oo qabtay asiga oo igu leh soo aniga kuma dhihin degdeg uma fiicno ee waa camal shaydaane bal eeg dhibta aad dhex gashay haddaan aniga kaa soo gaari lahaynna kaw ayaa lagaa siin lahaa ilaahay ugu mahadnaq adiga oo nool aan ku soo gaaray baxsadka aad baxsatayna waan kuu dhaafayaa markaan sababtoo ah waxaa tahay mid caqli yar oo aad u degdeg badan aniga oo aad u xanaaqsan xanuun iyo ciilni ahaay ayaa waxaan ku idhi ma kugu filnaaweysa inta aad igu samaysay ilaa aad meel kasta iga soo dawgasho heer aad i gaarsiisay inaan dhimasho ku duceyso musiibada aad igelisay maanta awgeed markaas intuu ciilka iga batay ayaan dukaanla meesha joogay meengeli weydiistay maadaama aan lug ka jabanahay magaaladana aan ku ceebaysanahay kaanlihii ayaa i meengeliyey oo iga celiyay timajarihi aniguna si aan magaalada ugu soo baxsado waxaan qoray warqad oo aan ugu sheegayo ehelkayga inaan magaalada ka guurayo waxaan iibiyey gurigayga meeshii ayaan kasoo guuray ilaa aan ka imid magaaladan marka aad ii wacdeenna ninka wajiga xun leh ee sababa inaan lugta jiiska noqdo ee idin dhex fadhiya markaan arkay ayaan idin diiday markaan sheekadiisii maqalnay ayaan la hadalnay timajarihi waxaana ku nidhi marun baa ninkan waxa uu sheegayo wuxuu timajarihi yidhi haa weliba kas ayaan u sameeyey arrinkaas haddii aanan samayn lahaynna maanta waa uu dhiman lahaa hadda isaga lugtiisa oo keliya ayaa wax ka soo gaareen laakiin haddaan aniga aan joogi lahaynna naftiis ayuu waayi lahaa isaga waxa uu yaqaanaa nin war badan oo dhibka uu soo gaaray oo mas-uulka ah laakiin xaqiiqadu taa waa ay ka duwan tahay sida ay wax u jiraanna aniga ayaan idin sheegaya waxaana ka sheekeeyey dhowr sheeko ay kala qabsadeen isaga iyo 6dii wiil ee walaalaha ahaayeen isku soo wada duuduub sheekadii oo ka sheekeeyey ninkii harqaanlaha ayaa aad u cajib gelisay boqorkii shiinaha kaas oo nafahoodii u hibiyey markii shaariyaar ee sheekadii dhammaysay ayay waxay tidhi sheekadan waxba ma ahan markii loo eego sheekada aan habeen dambe idin sheegi doono boqor shaariyaar oo ay ku socotay sheekooyinka xaaskiisa ayaa go'aansaday inuusan dilin suuxaas si oo u dhageysto habeenka xiga sheekadaas